mahadsanid waxaa si rasmi ah uga furmay koonfurta magaalada London ciyaarihii sanadlaha ahaa ee loogu talagalay bishan barakaysan ee Ramadaanka. ciyaarahan waxaa ka soo qayb galay 6 koox oo ka kala socota caasimadda waddanka UK magaalada London iyagoo kala ah kooxaha Dream Team, Al Hijra, General Daoud, kooxda Streatham, Nabadda FC iyo Somali Lion. ciyaarahan oo socon doona tan iyo xilliga lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo soo buuxiyay garoonka ciyaarta ka socoto oo ku taala isla xaafadan Streatham oo ah koonfurta magaalada London. ciyaarahan sanadlaha ah waxaa ka soo shaqeeyay dhammaan bahda isboortiga ee koonfurta magaalada London waxaana gudoomiye u ah Mr. Abukar Jimcaale, Dacar Muxyidiin, Mahad Tegow iyo ciyaaryahanka weyn Ahmed Abalisha. waxaa kale oo ka soo qayb galay ciyaaryahanadii bariisamaadkii waddanka Soomaaliya oo intooda badan ku nool isla koonfurta magaalada London. ugu horeyntii waxaa hadallo ka soo jeediyay gudoomiyaha ciyaarahan Mr. Abukar Jimcaale iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb gashay. hadalladoodina waxaa ka mid ahaa waxaa maanta sharaf u ah bahadweynta isboortiga guud ahaan gaar ahaan South West London dadka degan in ay abaabulaan tartan ciyaareed oo sanadle ah oo ka dhici doona koonfurta magaalada London. ciyaartaas oo sida aad ogtihiinba maanta bilaabatay waxaan gaar ahaan u mahad gaar u celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay odayaasha uu ka mid yahay Cabdiqaadir Soomare, Axmed Nuur, Maxamed Ismaaciil, Cabdiyare iyo dhammaan intii kale aan magac xusu waay. waxaan halkan ku qabanaynaa tartankii ciyaarihii Ramadaanka runtii xasuus weyn igu reebtay maadaama aan kamid ahay dadkii ku soo baxay ciyaaraha Ramadaanka garoonkii waama ay soo xasuustay taariikh weyn ayuu reebtay marka waxaan isku soo taagnay inaan maanta ka dambeysay inaan ciyaaraha Streatham ama South Westiga aan sharaf u yeelno ama aan soo celino karaamadii ay lahaan jirtay sport ahaan. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta halkan inaan ku qabanay koobka Ramadaanka South West London oo traditional u haysan Ramadaan walba aan qaban jirnay ee ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. waxaan ugu mahadnaqayaa dad marti sharafta ka soo qayb gashay. aadaan ugu faraxsanahay bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan South London iyo dhammaan daafaha London inay nagala soo qayb galaan waxayna ahaa doontaa insha Allah mid sii socoto barnaamijkan oo noo sii socon doona hadduu Ilaahay raali ka dhigo. maanta waxaan ku qabanay ciyaar munaasabadda koobka Ramadaan loogu magacdaray oo sanadkii labaad ah oo isku keenay dhalinyarada xaafadda degan. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno Ramadaan tournament runtii oo si loo soo agaasimay si aad u qurux badan xaqiiqdii. waxaan mahad gaar u jeedinayaa dhalinyarada soo abaabushay Streatham khaasatan tartankan quruxda badan la soo keenay dhalinyaradan inay isku arkaan. waxaan u yahay ciyaarta ay soo qaban qaabiyeen koobka Ramadaanka oo sanad walba ay dhigaan sanad walbana nagu casuumaan annaga hadaan ururka mideynta qurbo joogta marka aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay. caawana waxaad moodaa ururkii xubnihiisii ugu waaweynaa maanta caawa inay ku dhayihiin halkan ayadoo gudoomiye xigeenka iyo xogeynta kulli guud ahaan mid ay joogaan ay yihiin. waxaan leeyahay hambalyo dadkii qaban qaabada koobkan soo suubiyay. ciyaarahan la qabto xilliga bisha barakaysan ee Ramadaanka runtii waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid ku aragteen meelaha kala duwan ee caasimadda waddanka Ingiriiska iyo gobolada sida Manchester oo aan ku aragnay madaxdii iyo macallimiintii Woodward Park Sport Club inay ka soo qayb galeen. Cabdinaasir Ismaaciil, Universal TV, koonfurta magaalada London.